social anxiety ama social phobia walaaca bulsheed waa qalqal maskaxeed oo ay dad badan la dhiban yihiin, waxaana badanaa sabab u ah qofka oo ka baqaya inuu bulshada kala kulmo cayb, qursi, dhaleecayn iyo wixii la mid ah. waxaana tusaale ahaan ka mid ah qofka oo ka cabsanaya dadka inuu ka hor hadlo, xaqiisa weydiisto, inuu ka qayb galo munaasabadaha ay dadka badan isugu yimaadaan iyo wixii la mid ah. marka hore waxaa jira hab nidaam lagu hubiyo inaad la dhibaatoonayso social phobia walaaca bulsheed iyo inay kaliya kaa tahay fikrad khaldan oo adiga uun aad iska dhaadhaysay. waxaana lagu magacaabaa social phobia inventory oo loo soo gaabiyo SPIN. waa 17 su'aal oo aad ka jawaabayso si aad u ogaato heerka walaacaagu bulsheed gaarsiisan yahay. internetkana waad ka heli kartaa. waxaad u baahan tahay inaad booqato dhakhtar therapy ah oo si gaar ah ugu takhasusay CBT Cognitive Behavioral Therapy haddii se aadan heli karin. si aad ula tacaasho walaaca bulsheed social anxiety, marka hore waxaad u baahan tahay inaad u kurgasho fikirkaaga, dareenkaaga iyo habdhaqankaaga ku aadan xaalad kasta oo ku walaacinaysa. tusaale, saaxiibka ama saaxiibta ayaa kugu martiqaaday xaflad, waxaana laga yaabaa inaad isdhahdo ma aadi karo waayo ma haysto labis qurxoon oo aan xirto. dad badan aan isqoon ayaa meesha imaanaya, sidaa daraaddeed waan xishoonaya. dadka meesha imaanaya waxaa laga yaabaa inay saaxiibo isla socda yihiin, anigana aan keligeen meesha cidlo ku noqdo. hebel baa imaanaya oo aan isdagaashanahay. dabcan waxaa laga yaabaa dhammaan fikradaha kugu soo dhaca inay noqdaan kuwa negative ah oo aadan ku faraxsanayn. tallaabada xigta ayaa ah inaad challenge garayso fikradaha aad isweydiisay through challenging, adigoo dhahaya waxa aan ku fakarayo ma laga yaabaa inay dhacaan, boqolkiiba intee in la eg ayayse dhici karaan, ma tahay arrin halis ah ama khatar ku ah noloshayda. ugu dambayn, habka aan u fakarayo ma laga yaabaa inay khaldan tahay. taasi waa hal hab aad ku challenge garaynayso fikirkaaga. mid kale ayaa ah marka aad wax negative ah ka fakarayso inaad haddana isweydiiso maxaa kaloo positive ah oo suuragal ah. marka aad fikirkaaga challenge garayso, waxaa kuu soo baxaya waxyaabo badan oo kaa qarsoon, kuwaasoo kugu dhiirigelinaya inaad aado goobta xafladda. kadib marka aad ka soo laabato xafladda, haddana isweydii sidii aan wax u malaynayay miyay wax u dhaceen. waa maxay fasiraaddii khaldanaa ee aan hore u haystay? waxaa halkaasi ku daweyn kartaa wax badan oo kaa khaldan. xaalad kastana waad u adeegsan kartaa nidaamkan. dhanka kale, waxyaabaha aad kula tacaali karayso social anxiety ayaa ah inaad challenge garayso habdhaqankaaga, challenging behavior. waxaana ugu horeeya waxa lagu magacaabo exposure, inaad naftaada u ogolaato inay dhex gasho xaalad aysan ku raaxaysan, taasoo aad doonayso inaad wax ka beddesho. tusaale ahaan, haddii aad ka baqdo keligaa inaad meel babliga aado, waxaad marka ugu horeysa kaxaysan kartaa saaxiibka ama saaxiibtaa adigoo la socodsiinaya xaaladaada. soo joog muddo 10 daqiiqo ah, kadib ka soo laabo. haddana maalinta xigta keligaa aad oo soo joog muddo 10 daqiiqo ah, kadib iska soo laabo. maalinta saddexaad, kaxayso saaxiibka oo soo joog muddo 30 daqiiqo ah. maalinta xigtana keligaa aad oo soo joog muddo 30 daqiiqo ah. maalinta kusii xigta, kaxayso saaxiibka ama saaxiibtaa, soo jooga muddo 30 daqiiqo ah oo halkaas ku soo cabeeya. maalinta xigta keligaa aad oo soo cabay. inta jeer aad meesha aadayso, qiimee heerka walaacaaga, boqolkiiba intee ahaa maalintii ugu horeysay iyo maalintii ugu dambeysay. dabcan bilowga hore ma ahan wax aad ku raaxaysanayso, laakiin waxaa hubaal ah maalinba maalinta kasii dambeysa in walaacaagu hoos u yaraanayo oo aad la qabsanayso. xaalad kastana waad ku dabaqi kartaa nidaamkan. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iido muuqaalkan. nagulida fikirkaaga qaybta commentiga. mahadsanid.